agaasimaha dhakhtarka weyn ee magaalada Burco Dr. Cabdi Suudi oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa bulshada gobolka Togdheer iyo shacabka Soomaaliland ugu bushaareeyay in 29 bishan lixaad cisbitaalka Burco laga bilaabi doono adeeg caafimaad oo dadka aragga wax ka qaba loo fidin doono iyadoo adeegan yahay mid bilaash ah isqoristiisuna bilaami doonto 25 bishan oo maalinta bariya waxaan ogeysiinaynaa dadweynaha gobolka Togdheer iyo magaalada Burco iyo shacabka kale reer Soomaaliland ee soo gaari karayba in cisbitaalka Burco laga bilaabi doono 29 bisha haddii aan la yiraahdo olole caafimaad kaasoo lagu fiiqi doono bulshada aragga haddii aan la yiraahdo kaasoo socon doona muddo 4 cisho marka shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer magaalada Burco waxaan ku wacyigelinaynaa in adeegaas soo doontaan adeegana waxay ku qaban doontaa wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa bilaash waa adeeg dadka lagu qaban doono bilaash waxaana weeye waa indha fiiqis oo dadkii aan waxba arkayn iyo kuwa indha ka xanuunsanayaba waa lagu daweynayaa haddii la yiraahdo dadweynaha waxaan ogeysiinaynaa in registration-kii ama dadka la sii qori doono oo ay bilaabmi doonto la yiraahdo qoritaanka dadkaasuna maalinta bariya ee isniinta haddii la yiraahdo 25 bisha muddada 4 cisho ka horeysa 29 bishana waxa socod doonta registration-kii wixii inta ka dambeeyna waxa bilaabmi doona shaqadii taasoo ah in dadka la daweeyo indhahana waxay qaliin noqdana loo fiiqo marka wixii inta ka dambeeyana ma jiri doonto ciidan doolar registraynaya marka bulshada waxaan la socodsiin doonaa inay ka faa'iideystaan muddada 4 cisho ee registration-ku socdo oo ay yimaadaan oo aanay ka habsaamin waayo 4 cisho kaliya hadhow markuu qaliinka iyo daaweyntu socoto cid la qorayaana ma jirto cid dambe oo wax loo qabanay ma jirto marka 4 cisho la siinayaa in la register-gareeyo marka waxaan aad ugu boorinaa degmada dadka ku nool magaalada Burco iyo agaarkeeda iyo cid kasta oo reer Soomaaliland soo gaari kartaba inay yimaadaan adeegaasna waxa lagu qabanayaa haddii la yiraahdo si bilaash ah oo wasaaradda caafimaadka u qaban doonta haddii la yiraahdo si kastaba ha ahaatee tan iyo intii maamulka cusub loo magacaabay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Siduwaha iyo agaasimaha cisbitaalka Burco ayaa wax weyn iska soo bedelaya xaaladii dhakhtarka Burco Mahad Cali Goodir Star TV Burco.